Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxa aan rabaa Soomaalida inaan u caddeeyo buuggan ani malaa'ig baa garbahayga saaran. Buuggan hal sano ka hor bay waxaan soo xaday dad idinka wax kale ku mashquul. Ani lambar arkaan waxaan ola baxay siraha badan oo Soomaaliya anfici doono ayaan halkan ugu jiraa. Buuggan waa buuggii madaxafkii Masar ee khaaska ahaa ee alaabtii Fircoon lagu keydinayay lacag badan baan ku soo bixiyay. dowladda Masarna waxay isku dayi jirtay weligeeda Allah inay qariso kooxda Fircoon halka ay ka timaaday iyo waxay ahaayeen iyo asalkoodii. waxaa jira marka aan rabaa inaan idin xaqiijiyo buugga hal sano maxaan u soo bandhigi waayay. waxaan baarayay bal waxaan horta ma runbaa ma beenbaa waxyaalaha aan ku rumaystay buuggan baan rabaa in la wadaago oo qof walba oo Soomaaliya baar arrintaa. waxaan ka bilaabay buuggan waxa uu sheegay markaa arkay waxyaalo badan oo la yaab badan baan ku arkay xataa dadkaas diimaha caabudi jireen iyo waxay caabudi jireen baa meesha ku yaal. waxyaalaha aan mucjisada aan kula yaabay waxay ahayd oo buuggan kula cajiib badnaaday soola qolada la yiraahdo heeb soocadka ah ayaan baartaan u galay. waxaan ogaaday magaca saalax ama sool ayaa ku fara badan markay abtirsadaan oo fiiriso sool bay gelayaan magac soola la dhaho soola ya magacaas halkaasaan ku xaqiiqsaday inay qolada loogu jeedo nin kasta oo la heeb sooco bal abtirsadhe soola meel buu ka soo gelayaa ama midka labaatanaad iyo sadduusan garanayninba oo 14 koreen 20 hadduu gaarsiin karo anaa kabaha raashinka ii saarsan hadduu soola geli kari waayo. waxaan baaray haddana qolyahan geela iyo ariga dhaqda ee buuraha ku nool ee xoolo dhaqatada ee Soomaalida ah ayaan baxay marka kuulan iyo koola wuu ka buuxaa ree kuul ree maxaad kuul ree hebel waa ka buuxaa magacaas waa shahaadanaysaa. waxyaalaha mucjisada ee buuggan aan ku arkay bay ka mid tahay. waxaan kaloo ku arkay jidda dadka webiga dega markuu ku leeyahay waxaan arkayba qabiil dhan oo jidle la dhaho oo webiga dego oo meel aan webi ahayn maba degaanba oo Soomaali ah. waxyaalaha buuggan aan ku cajiibka ah ee uu ku sheegay waxaa ka mid uu ku leeyahay dadkaasi haddii gabartooda aad aragto oo gabar iyaga ka mid ahi aad guursato waxaad ku ducaysan jireen soola gabdhahooda way yaraayeen. waxaa dhacday ku leeyahay soola dad cad oo carab ah bay ahaayeen laakiin markii dambe oo ay jabeen isdhex galeen dadkani oo muddo 50 sano meelaha isla deganaayeen dad waxaa jiray yiri ay dhaleen oo ay guursadeen qoladii jiida iyo qoladii kuula ahaa bay guursaday qaxarka ahaa kuwan qaxarka ah way guursadeen. waxaa dhacday yiri xataa kuwii guursaday iyaga ayaa ku eka waxaa dhacday markii kuwan dalka laga saaray kuwa carruurtoodii xataa kuwaas la qaxay jiida iyo qaxar la qaxay buu ku leeyahay. haddii aad baarto wuxuu ku leeyahay marka aniga hadda dhiinantooda dadka baari lahaaba xaqiiqatan been kuma sheegay waxyaalo badan oo igu sheegay baa ka mid ah waxa ka mid yiri gabadhooda waa loo duceyn jiray oo ilaahiyooyinka meeshaas wuxuu ugu duceyn jireen baa la yiri in uu ilaahay siiyo ninkii guursado inuu cimri dheer iyo caafimaad siiyo yaa ka mid ah buuggan waxyaalaha mucjisada aan ku arkay. bal gabar adiga wakaas qolyaa la heeb soocay guurso nin guursado arag sokor nin qaba arki maysid nin xanuunsan arki maysid nin jiran arki maysid way ka xoog badan yihiin way ka orod badan yihiin waa waxyaalaha aan la yaab wuxuu ku leeyahay ducooyinkan kuwan hadda meelaas ma geli karayo oo diintayda iga mamnuucaysa meelo badan oo wax ku caabudi jireen baa jirto oo dadka boqortooyada ay u lahaayeen dhaqan oo la yaabay oo yiri gabdhahooda haddii la guursado qaaliga ahaayeen yacnaa waxay aaminsanaayeen inuu qofku caafimaadayo hadduu xato xanuunsanaa inuu weligii alle xanuunsanaynin inuu cimri dheer yeelanayo. hadda markaa fiirso gabdhahan la heeb sooca bal fiir ragga qabo carwaqaas arag gabar ninkeedii dhakhtar jifo oo dadka la heeb soocaya ma jiraan. waxyaalaha baaritaanka aan aniga idin xaqiijinaya waxaa ka mid ah kuul baan baaray qabiil kasta oo geel dhaqda ama bari ha ku noolaade ama waqooyi ha ku noolaade ama xagga ha ku noolaade awoogiisii sanaad tobnaad wuu galahaya kuula. jidlihii baan baaray waxaan arkay jiita qolada dhiya jiita haddaba qabiilka jidle oo lama dilaya Soomaalidan cudurka dilay ee qabiilka waa qabiil Soomaali kuma jiro yacnaa jiin webiga markuu yiraahdo waxaas qabiilka jiinka ayaa ka jida. waxaan arkay xataa qoladii jireerta hadda aad leedihiin idinku ani ma dhihi karaye Soomaalida biyurka waxa xaqiiqatan oo ii soo baxay inay halka aan ka helay jiid waxay ku leeyihiin jiin webi jiitaal iyo waxay leeyihiin jino juna yeeleeyin iyagana qabiiladooda ay galaan markaad tirsato baaritaanka aniga buuggan markaa ii soo bandhigayo waxyaalo caddayn oo aan ku arko wuxuu yiri kaleeto soola waxaa lagu yaqaanay biro ay lahaayeen karaamada waxaa ka mid ah buu ku leeyahay hadduu musbaar ku mudo hadduu qodax ku mudo oo alisay iyaga oo kaadinin oo markaa soo kacay oo wejigiisii wato biyo lahayn igu tuf aad dhahdo isla one day ma arkaysid meeshii buu ku leeyahay dhacaamaysa infection ka qaaday
taa unba hadda aani baaritaankeeda ii laaban oo rabaa inaan baaro karaamooyinka soola lagu ogaa waxaa ka mid uu kuley lagu yaqaano markay bir ku muddo ama sili ku muddo ama ay lug ku bararto infection ku qaado haddii lagu tufo iyaga ay kugu tufaan iyagoo soo kacay oo hurdo ka soo kacay oo aan kaadin oo weji dhaqan ilbiriqsi ma dhanuu ku leeyahay taa unba hadda aniga ii laaban baaritaankeeda wada hadduu la yidhahdo oo nila qaybsan doonaa intaa kale waan xaqiijiyey markaan buuggan soo xaqiijiyey waxa uu sheegayo ayaan xaqiijiyey wuxuu yidhi dadkan la yidhaahdo jiitaha iyo dadkan la yidhaahdo soolaha wuxuu ku leeyahay waa dad masiibo ah oo maaragtay dadka kuulaha laleeyahay kuulaha xoolo dhaqatada annaga u badana marka soomaali soola waa dad nadiifa oo bayuur ah oo caraba oo rasmi ah oo la yaqaan oo carabaha dalka asalkooda ka yimid ama dalkan caadiga u lahaa ee rasmiga ahaa intannada kale waxaan ahayn jiita iyo aanu nahayn qoladii la dhihi jiray كولا وادد دب مرن بوير وادد أن وحي ربان إنك عم برا لغة هاي مويان وحر جو كلام له كله دت كاسيتو وادد هذا وادد كي مركي دت كي ماشي كسارين يجين يجوج واير بابين الرفاضين وحسمين واير ويكله تهريبين بكله قار هالكاس كوارن قار وكون وبيا بدي كوار أو هالكي بيدقراين قارنا وحير waxay u carab kuwii kale soolaa ah wuxuu yiri iyaga iska ilaalin jireen sida xayawaankii bay dur galeen oo ay noqdeen buu yiri kuwa cuno ma artay xayawaanka ugaarta cunaan ya noqotiin iyaga iskaga carraan wuxuu ku leeyahay buugan aan kula yaabay waxaad arkaysaa buu yiri jiitaha iyo nimanka la yiraahdo kuulaha waa annaga Soomaalidana kale waa dad qabyaalada wuxuu yiri waxay iskaga midoobayaan buu yiri qof kasta oo iyaga aan ahayn way ka midoobayaan way midabtu koorayaan way la ficiltamayaan say ku dhacday dhahayaan buu yiri haddii aad iyaga fiiriso yiri oo maanta kuule basa war kuulow kaale aad dhahdo oo dhado war kuulow haye oo iyaga is xukumaan way isxasdayaan buu yiri jiidan isuma ogola nolol isuma ogola xaasinimadu xataa waxa arkaysaa buu nin walaalkii oo nafta ka baxayso oo reerkiisa gaajaysan yahay aan sumuni siinin bad arkaysaa buu kuleeyahay wuxuu ku sheeganaya qabay hadduu laakiin jiitaha uu soo weeraru yiri qolada la yiraahdo kuula ay soo weerto qabiilka kala wuxuu yiri hubkay qaadanayaan buu yiri waa dharkii qaadan nafteeba ka go'aysaa buu yiri u dhimanaya haddii laakiin jiitaha keligii iyo kuulaha oo keligooda ay iyaga nool yihiin buu kuleeyahay walaalkiisoo dhimanaya xataa waxba uma qabanayo kuleeyahay qabiil baan isla sheeganayaan hadduu jiitaha soo weerarano ninkii xataa kii dhimanaya ee gaajada kan shalay wax siinaya xataa ma warkan waxba kuma siinayo wuu ku curiyamiye kaasaa ku dhama xataa dhimaya qabyaaladaas waa wax wuxuu yiri waxay la ficiltameen buu yiri xaaraan waxay la ficiltameen buu yiri oo la falgaleen buu yiri dhibaato waxay la falgaleen buu yiri qaxar iyo halaaga iyo waxa ay dhibka iyagda waa dad dagaal jecel halaag jecel qaxar wanaagba ma jeclu kule dadka in gacan bir lagu dhiga mooyaan buugaasi waxyaalaha aan ku aaminay ayay kamid tahay idinkana waa ila aamini doontaan hadduu ila yiraahdo waxaan kaloo ku arkay buugan wax cajiib ah oo cajiib ah meel aan gelin baa jirto buugan oo diinta ka baxsan oo aan diiday inaan galo oo diinteeda ii fasaxaynin ayaa jirto haddaan la qabsado Soomaalidan dadkan aan waxba aaminin waxbana dhageysanin maskaxda aan u bixiyay waa kulligooda dhan waa receiver ma laha engineer maqalka u sameeyay lama heli karo Soomaalida dhibaatada haysato dhibkan waa laga bixilaa waa saas waayo ana 7 sano idinku daalay oo wax walba intu say aniguna waxaan ahay lama arkaan waxaan oo la baxay sirahaasaan dabagalaa waxaan idin soo sheegaa waxyaalo idinka weyn waxaan idin soo sheegaa waxyaalo idin maskaxdiin qaadan karin waana la arkaa 5 sano 6 sano ciidan nool in life baa loo taaba wax aan soo sheegay 7 sano ee qadka ku jiro on la aragna ma jiraan haddaan la arag ii soo dhig Facebook waxay tiraahdaa lama aragne fi TV-gan ku soo dhigaya anigana waa ku soo cadeyntadan ku soo dhigaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliya oo ugu qiimaha badan oo ugu sharafta badan in soo la ahaayeen ee asalkooda ahaa inteenada kale waxaan nahay jiita iyo waxaan nahay kul oo qaxar iyo halaag oo dhibaato wada oo aafaysan baan nahay oo dalkan ka degilaya buugan wuxuu ku qoraa marka hore afkii faraacintii waxaa lagu turjumay carabi isagoo oo baaba'san oo yaabayso garanayso qofkan buugan wuxuu ku sheegayaa Soomaaliya halkay ka timid aan inkiri karaynin Masar ayaa haysay weligoodii Allaheedna way dan kama gelin sababta ma ahayn taariikhdeed bay ahayd oo Soomaaliya ah buugaana waxaa ka dhaxleen oo ay laga soo qaaday Fircoon gurigiisii markii la helay alaabadii Fircoon bay kamid ahayd buugan marka carabi baa laga dhigay halkan xabeen aniga yaaba ka jiraba hadda inta la hayo anigana aan ku guuleystay inaan soo saaro buugi marka waxa la yiraahdaa asal afriq soul
intaan taa buuggaa gelin dad badan baa waxay soo weydiiyeen markaan ka hadlay ogaadeen iyo nimanka la yidhaahdo ii sheeg waxaa la dhahaa qoladii aan anigu hadda soomaalida la yaso ee la quursado insha allahu tacaala dad badan baa waxay dhaheen magacaan midgaanka ka daa waxaa laygu yidhi laheeb sooca dheh taas dad baa itoosiyo aan ku mahad celinaya dadkan laheeb sooco waxaan doonayaa inaan hal idinka dhadhacsiiyo war anigu soomaali baan ahay wallaahi billaahi tullaahi inaanan been idiin sheegaynin magacan aad igu salaynaysaan ee aad u malaynaysaan inaan ogaadeenahay miihi waxaan rabaa soomaalidii ilaahay wuxuu ka dhigay khaa'in wuxuu ka dhigay daacad ninaan rabin mid aan diin rabin war waa dad ilaahay inta waxa ka maqan dhiishka maqalka ayaa ka maqan soomaalida haddii dhiishka maqalka lahaan lahayd waa receiver kulligooda dhan waa transmission wax bay gudbiyaan laakiin receiver ma laha dhibaatada soomaaliya ay la degilaad ay haysato dadka receiver hadday lahaan lahaayeen wax bay faa'iidi lahaayeen wax bayna dhegaysan lahaayeen wax bayna maqlayeen wax baan iska bedeli lahaa dhibaatada soomaaliya ay waxba iska bedelaynin dadkoo dhan waa transmission waxaan qaada anaa kuu sheega waaye receiver maba ogolaba qofka soomaaliya inuu dhegaysto jaahilnimadii annagoo noo sii dheerto haddana waxaa ka sii daranba uqdad rabbaani ahoo waxaana saaranba maaragtay iska dhicin ninka ayaa lagaa dhicin miyaa I don't know waa wax rabbaani oo dhiiggeena galayba waa buuggan suu sheegayo buuggan dad baa iga codsaday wuxuu yidhi soomaalida waxay ahaan jirtay 3 qaybood weligin miidan maqal aniga ka hor dhegaysta soola jiita iyo kuul soola waxaa la yidhaahdaa buu dhihi jiray dadka xeebaha degan ee markaa ganacsiga ilbaxnimada haysto yaa soola la yidhaahdaa buu leeyahay dadkaa waa dad cadcad waa dad carab garanayso kuleyl inuu hayo ah oo dal kuleyl ku nool asal ahaan inay carab yihiin oo cadcad yihiin baad dareemaysaa buu dadkan soolaha la dhaho dadkan marka soolaha la yidhaahdo waa dad degan waa dad qabow oo kuul ah waa dad aanan dad dhibaato ahayn waa dad ma aragtay mas-uuliyad ka muuqato waa dad xukumayay buu yidhi dalkaas weligii yaaliya waa kun iyo wuxuu leeyahay taariikhda yurub markaan idinkugu bedelo 46 ama wuxuu leeyahay 900 buu ka bilaabayaa ilaa adi 1040 uu leeyahay intaas u dhaxaysa iyo 800 sano ilaa 1040 buu leeyahay buugan dawlad Soomaaliyeed baa la kaashan doona hadduu Ilaahay yiraahdo waan la soo saari doonaa waxaan rabaa inaan idinkaga sheego sool markuu dadka noocaas ku tilmaamayo wuxuu leeyahay jiita oo iyagana waxaa jiro kuwa la yiraahdo kuul wuxuu ku leeyahay waa dad kulul oo waxay degaan buu ku leeyahay buuraha iyo qarriga iyo maartay webiga ma ogola biyo ma ogola waa dad wuxuu yiri kuleel iyo qaxar iyo qad oo xoolo dhaqato ah buu yiri oo la dhaho kuul ilaa waxay isku xiran yihiin biyo Ethiopia markaas wuxuu ku leeyahay dalka Ethiopia ana hadda Ethiopia magac kale soo ku sheegayay wuxuu leeyahay hadda aan hilmaansanay dalkaas wuxuu ku xiran buu leeyahay buuray degi jireen buu dadkaas ilaa dadka halkaas waxa u malaynaya kuwan hadda buugta dambe beenta laga sameeyay ee la yiraahdo kushitigi inay taan u malaynaya wuxuu ku leeyahay dadkaas cool baa la yiraahdaa buu ku leeyahay cool waa wuxuu ku leeyahay waa dad haraatan waa dad kulul waa dad qaxar iyo dhibaato iyo halaag iyo maarta qarid inay deganaadaan jacayl buu leeyahay waxa ku leeyahay jiita marka wuxuu ku leeyahay waa dadka wabiyada dadaan buu ku leeyahay waa madmadow waa gaagaaban yihiin xogo wajigooda waa ka balbalaarin kuwan afrikaanku sheegaya dariskana leeyahay ama aan dhahno magac kale aan dadka kala macaaye saad u farsanay tala dadka waa dadka asalkooda afrikaan ahaanta ah oo Afrika soo jeedo wuxuu ku leeyahay dadkana jiita la yiraahdayo waa wabilay buu leeyahay oo biyaha wabiga iyo dhinacaas degayin markay wax u baahan yihiin jiita iyo kuul wax u imaan jireen soola wuxuu haystay ku leeyahay dhulka xeebaha oo dhan ee Soomaaliya oo haysan jiray wuxuu ku leeyahay waa dad ganacsataa waa dad carabahaas iyo halka ku xirraa buu ku leeyahay soola marka dad oo xukumayna weeye dhaqaale iyo siyaasadba dalka Soomaaliya xukumay weeye buu leeyahay marka waxa dhacday buu leeyahay waxa yimid oo soo gaajooday oo kuwan abaar iyo wax keenayba qolada dhijida jiita oo wabiyadii iyagana ka guray buu leeyahay oo rafaadsan iyo waxa yimid buu leeyahay nimankii dhihi jireen cool iyagana kuwana oo imaadeen waa la dajiyay buu leeyahay waa raashin waxba la siiyay waxay ka tirsanaadeen buu ku leeyahay heshiis baa la galuulay marka inay dhulkan wax dhibaato u geysanin inay la deganaadaan inay walaalo yihiin inay sidaasa isagoo oo magac guud markaas aan lagu ballamay in la sameeyo
waxaa dhacday marka jitaha iyo suu leeyahay kuulaha waxay hoos ka heshiiyeen buu leeyahay inay ninkan u qabeeyaan oo la dagaalaan waa dad qaxar oo dhibaato miiran oo xaaraan iyo xalaalba kala jecleen buu leeyahay oo dhiba oo dadkan soolaha ee degan ee qabo walaalada soo dhaweeyay aanan u ogoleen noloshuu leeyahay marka way weerareen buu leeyahay marka buugani way weerareen markay weerareen way jibiyeen kooxdii soola markay jibiyeen baabi'iyeen way baabi'iyeen buu leeyahay wax badda ku dhammaado wax yar oo ka haray oo ka cararay buu leeyahay oo maaligoonoo dur weligood duurkay ku noolaayeenoo waa dadka hadda aad heeb socdaan buu yidhi maaragtay ugaarsanaya buu yidhi ugaar bay galeen buu yidhi oo saasay ku ugaarsadeen buu leeyahay marka waxaa dhacday buu leeyahay nimankii jiita iyo nimankii la dhihi jiray kuul way isdhex galeen oo way isguursadeen buu leeyahay oo walba laba qaxar bay ahaayeen dalkoo dhanna way la wareegeen buu leeyahay iyo dadkii oo dhan saasaa marka nimankani loo yasay buu leeyahay oo loo raacdaystay buu ku leeyahay waxaa dhacday ku leeyahay marka nimankii markay sidaa noqdeen noloshii ay ku adkaatay ganacsigiina ay ku adkaatay meelay aadaan ay garan waayeen baddiina ay garan waayeen ayaa waxay sameeyeen buu leeyahay inay qaarkood iyagii qudhigoodii ay ku soo foolahaato nolol aad u xun oo iyagu qudhigoodii xataa ay kala jajabeen oo qaar dhan ma noloshannada hore ku laabanno qolaj qaar ay dhan annagana jiitadana maan ku laabanno qaarna halkoodiiba iska joogeen qaarna waxay u safreen halkaa iyo masar buu yidhi oo waa qolada fircooniga la leeyahay buu ku leeyahay buuggan hadda ninka maaragtay turjumay asaalixadiin marka buuggan haddaad rabtaan waan idiin wadaya mashruuciisaas intaasaan ka sheegaya buuggani taariikhdana waa taariikh dhab ah oo xaqiiqatana wuxuu ku leeyahay nimanka soole la yidhaahdo waa niman degan waa niman akhyaara waa niman aan dhibaato iyo maaragtay ka nasan asalkoodu inay way ka qurux badan yihiin buu ku leeyahay jiitaha iyo way ka qurux badan yihiin buu ku leeyahay labadan waa laba isguursatuu ku leeyahay asal ahaan markaa fiirsana dee afrikuu ku leeyahay laakiin jiitaha iyo nimanka la yidhaahdo kuulaha oo kuwan beeraha iyo kuwan duurjoogga ee aafada ee xoola dhaqatada ah ee dalkan dadka sidan u galay baabiye ilaa xilligan horta waa annaga un wey intannada kale wey intaan soola ahayn ee soomaali sheegato dhan waa jiitahaas iyo waxaa weeye kuulkan dhibaatada wada ilaa xilligan aan degi la'nahay wuxuu yidhi waa dad dhib maran waa dad haraad miran waa dad saas ilaa fiir buuggaa xilligu ka soo sheekaynaya soolaha wuxuu ku leeyahay haddaad fiiriso qofka asalka umaba soomaalida maba galuu ku leeyahay umaba qalmaba dadkana jiitaha iyo kalenta wuxuu yidhi wuu ka degan yahay wuu ka akhriyaarsan yahay wuu ka deeqsisan yahay wuu ka wanaagsan yahay wuu ka ixtiraam badan yahay xataa laftiisa markaa fiiriso ku leeyahay waa ka qurux badan yahay ku leeyahay isku laf maaha isaga ka qurux badan marka nimankan aad u bixisaan heeb socdaan soole la yidhaahdo ayaa la socda waa asli waa madaxdeenadii rasmiga ahaa waxaa iskugu tegey labadan mooryaan ee ah jiitaha iyo kuulaha ee annaga ka koobannahay soomaalidana kale waan wadi doonaa cashirkan insha allahu tacaalana la socda brofesoro badan baa soo codsaday soomaali badan baa soo codsatay insha allahu tacaala buuggiina waxaa liga codsaday inaan la kaashado dad badan oo soomaaliya oo ballan qaaday inay daabacayaan marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu